wasaaraha waxaa la weydiiyey sida ay isaga iyo carruurtiisa hantidoodu ku badatay malaayiin goor intii uu xafiiska joogay. maanta maalin guul leh ayay u tahay Pakistan. ruushka ayaa waxa uu ka jawaabay cunaqabataynta cusub ee Maraykanka isagoo ku dhawaaqay tallaabooyin aargudasho ah. Washington ayaa waxaa la siiyey ilaa iyo dhammaadka bisha Agoosto in ay ku yarayso shaqaalaheeda diblomaasiyiinta ah oo ay ka dhigto ilaa iyo 455 taasoo la mid ah tirada ruushka ee ka joogta waddanka Maraykanka. baqaar iyo dhul Maraykanku leeyahay oo Moscow ku dhow ayaa la xiri doonaa. wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka ruushka ayaa waxa uu sheegay in cunaqabatayntaasi ay meel mariyeen Kongareeska Maraykanku ay ka muuqato ruush nacayb. tallaabooyinka cusub ee ruushka ayaa waxa ay si weyn ugu eg yihiin kuwii uu qaaday madaxweyne Obama Decembertii la soo dhaafay, taas oo looga jawaabayay faragelinta Moscow ee doorashadii madaxtinimada. Senadka waddanka Maraykanka ayaa waxa ay diideen in la bedelo barnaamijka caanka ah ee dib loogu habaynayo barnaamijka caafimaad ee Obamacare, taas oo dharbaaxo weyn ku ah madaxweyne Donald Trump. waxa ay keentay jahwareer markii senatarka ruugcadaaga ah ee lagu magacaabo John McCain kaasi oo ka soo tegay daweyntii kansarka si uu fadhigaasi uga qayb galo isaga oo la codeeyay dimuqraadiyiinta iyo laba kale oo jamhuuriyiinta si looga adkaado qaanuunkaasi oo aan loo meermarin. waxaana qaanuunkaasi diiday 51 oo ka soo horjeesatay halka 49 ay u codeeyeen. madaxweyne Trump ayaa waxa uu ku eedeeyey qolyaha diidan in ay dib u dhigeen dadka Maraykanka, waxaana uu sheegay Obamacare inuu iskiis u burburi doono. Jack Schumer oo xisbiga dimuqraadiga ah ayaa waxa uu sheegay in tani ay nafis siinayso malaayiin qof si ay u sii haystaan xanaanada caafimaadka. We are not celebrating. We are relieved that millions and millions of people who would have annagu dabaaldegi mayno waasan nafisnay in malaayiin iyo malaayiin qof oo aad ay u dhaawici lahaayeen hindisayaashani ugu yaraan ay iminka sii haysan doonaan daryeelkoodii caafimaad horay ugu shaqayn jiray siiba kuwa khuseeya ee dadka waayeelka ah guryaha lagu xanaaneeyo iyo dawooyinka ee kharashkooda ay bixiyaan ee habka daryeelka caafimaadka. marka annagu kuma aanan nafisine waa dadka Ameerikaanka kuwa arrintani ay nafiska u noqotay. but for the American people. waxaa jira warbixino la xiriirinayo iska horimaad u dhaxeeya Falastiiniyiinta iyo ciidamada Israa'iil bariga Qudus ee Israa'iil haysato iyo meelo kale. ciidamada ayaa waxa ay sheegeen in Falastiini isku dayay inuu tooreeyo askari lagu toogtay daanta galbeed. tan ayaa waxay imaanaysaa iyadoo xiisadu ay haraysay Qudus qaybta barakaysan ee Xaramul Shariif. Israa'iil ayaa waxay ka mamnuucday ragga 50 sano ka yar in ay ka soo qayb galaan salaada Jimcaha iyagoo sheegay inay qatar ku yihiin deganaanshaha. waa salaadii ugu horeysay tan iyo markii Israa'iil ay ka fujisay masaajidka qalabka cusub ee wax lagu baaro, kaas oo Falastiiniyiintu ay si weyn uga hor yimaadeen. ugu dambeyntiina wararka ka imaanaya waddanka Suuriya ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dawladdu ay horumar ka sameeyeen daafaha magaalada bariga ku taal ee lagu magacaabo Al-Suqna, taasoo haystaan kooxda la baxday dawladda Islaamiga. kooxda xuquuqda aadanaha ee Suuriya ee fadhigoodu yahay magaalada London ayaa waxa ay sheegeen in halkaasi uu ka dhacay dagaal xoogan iyadoo ciidamada waa kuwa waddankaasi Suuriyana ay taageero ka helayeen duqeymo xagga cirka oo Ruushku ay sameynayeen. Al-Suqa ayaa waxa ay ku dhacdaa goob istiraatiiji ah jidka saxaraha ee aada qaybo ka mid ah webiga Ufratis, kaas oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyadu. warkii oo intaasi ku eg aan dib idu ka celiyo Axmed Cabdinuur. mahadsanid aadan. halkani waa London. toddobaadkan dowladda Soomaaliya waxay soo saartay digniin ay u jeedisay dad ay sheegtay inay lacag siiyaan xarakada Al-Shabaab ee dagaalka hubaysan kula jirta dowladda iyo ciidamada ajnabiga ee taageeraya. dowladdu waxay sheegtay in ciddii amarkaas fulin weyda ay tallaabo ka qaadi doonto ay ka mid tahay in xoolahooda ay la wareegto. Al-Shabaab waxaa la ogyahay inay ganacsatada ku nool deegaanada ay ka taliso ka qaado lacag saka ah iyo wixii kale ee ku waajiba ganacsatada goobahaasi ka shaqaysta. ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre
waxa uu ku eedeeyey shirkadaha qaarkood inay al-shabaab siiyaan canshuur ka badan tan ay dowladda siiyaan. dadka arrintan ka soo horjeeda waxay sheegayaan in tallaabadani ay dhaawac u geysan doonto mujtamaca ganacsatada ah ee ku hoos shaqaysta dhammaan deegaanada ay kala xukumaan kooxaha iska soo horjeeda ee dalka Soomaaliya. su-aashu waxay tahay tallaabadan ay dowladdu ku dhawaaqday al-shabaab ma ka joojin doontaa dakhligii ka soo geli jiray ganacsatada Soomaaliyeed ee ay lacagahaasi ka qaataan, mise waxaa meesha ka bixi doonta xorriyadda ganacsiga ee dalka Soomaaliya? mowduucaas ayaan galabta ku falanqaynaynaa barnaamijka dooda. waa hagaag aan ku bilaabo haddaba maadaama dowladdu ay soo saartay amarkan dadka ka qaybgelaya. horta haddaan idiin sheego dooda waxaa ka mid ah cabdulqaadir xaashi oo madax ka ah macadka daraasaadka siyaasadda ee heritage ee saldhiggiisu yahay magaalada muqdisho. waxaa kaloo ka qaybgelaya dhoore oo madax ka ah isaguna rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya. waxaa kaloo ku jira maxaan ku yidhaahdayey generaal guubir oo ah sarkaal military. dhinaca ganacsatada qudhooda waan isku daynay inay barnaamijkan ka soo qayb galaan, laakiin ilaa iyo hadda cid diyaar u ah ma aynaan helin. inta aan hawada ku jirnase haddii ay ka soo qaybgalayaan barnaamijka waa soo dhoweynaynaa. facebooka ayay nambarkooda noogu dhaafi karaan, annaga ayaa ku celin doona. hagaag waxaan ku bilaabayaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ee Soomaaliya injineer Yariisow oo qadka magaalada Muqdisho uga jira. injineer waa mahadsan tahay waqtiga aad siisay ka soo qaybgalka barnaamijkan. marka hore waxaan jeclaa bal ilaa intee ayay idinka dhab tahay digniintan dowladdu soo saartay? bismillahi raxmaani raxiim. marka hore aada iyo aad baan b b c da uga mahad celinayaa iyo martida ku jirta cabdirashiid iyo khiyaarta kale. arrintan iyada ah horta meesha aad ka tiri ra-iisul wasaaraha ku eedeeyey inay lacago badan bixiyaan, taas ma huba inay sax tahay. marka waxaa la rabaa inaad cadeymihii taas aad keentaan. midda kale annaga qorshuhu wuxuu ahaa golaha wasiirada ayaa go-aamiyey in muxuu ahaa kooxaha argixisada aan sunna loo taageerin, ha noqoto dhanka dhaqaale, dhanka siyaasad iyo dhanka niyadba. arrintaana waxay ku timid bacdama dowladdu ay mudnaan gaara siisay arrimaha amniga iyo xasilinta iyo la dagaalanka kooxaha argixisada. madaxweynuhuna hore u iclaamiyey in dagaal lagu jiro. dagaalkii ayaa qeyb ka mid ah lagu guuleystay xasilintii magaalada muqdisho si wanaagsan u socoto iyo deegaano kale. waxaa haddana soo baxday inay jiraan caqabado dad maxaa weli taageera kooxaha argixis, ama cabsi ha u taageeraano ama si niyada ha u taageeraano. dadkaas ayaa digniinta loo jeediyey oo la yidhi waa dembi cid allaale ciddii taageerta kooxa argagixiso ah. marka tan waa mid runtii qofka noocaas oo kale ah hadiiba ay jirto waa dembi. dowladdana waa ka go-an tahay dagaalkan lagula jiro kooxaha argixisada si kastoo loo ciribtiri karna in loo ciribtiro waa. waayahay cabsi ayaa soo qaaday marka dadka qaar inay dhici karto in cabsi marka loo hanjabo ama maaragtay siyaabo kale loola hadlo inay cabsi wax ku bixiyaan ay dhici karto. cabsidaas dowladdu wax ma ka qaban kartaa marka oo dadka ammaankoodii ma damaanad qaadi kartaa? ha waa kan aan ku jirno oo ah maanta koowaad in la siiyo amnigii. midda labaad waxay tahay cabsidaas ilaa intay soconaysa iyo handadaadaas. marka shacabka waxaan uga dignay in muxuu ahaa ay sharaf inay ku noolaadaan inay uga ron tahay inay cabsi iyo handadaad ay lacag baada ku dhiibaan. midda kale soomaalidu waa la socotaa dibadaha markay joogaan ganacsatada aad bay isaga ilaaliyaan inay argagixiso taageeraan, sababtoo ah sharciyada dalkaas joogaa qabanaya. marka haddii markii dibadda la joogana ay saas loo dhaqmayo, markii gudaha la joogana wax diidi kara
ma jiro, naftu hal mar bay dhimanaysaa. cabsida ay ka cabsanayaan waxaa ka weyn inta lacaga ay ku taageeraan ay siiyaan hadhow caruurtoodii iyo shacabkii lagu laaynayo maalin walba. marka arrimaha waa arrimo runtii aan aad muxuu ahaa looga fikiray. qorshaha oo amniga muddana lasoo diyaarinaya madaxweynahana oo hormuud ka yahay ayay qayb ka tahay. qaybtan waxaana u aragnay hababka ugu muhiimsan ee lagula dagaali karo kooxaha argixisada in laga joojiyo taageero walba oo la siiyo. wasiir, marka waxaa la yidhi maxay ahayd mijo dhooqo midba mar baa la bixiyaa. sow ma habboonayn in marka hore ammaanka la sugo kadibna amarkan oo kale ama digniintan oo kale lasoo saaro la yidhaahdo kooxdaas meesha waa ka saarnay, marka wax damboo la siin karaa ma jiraan? taasoo argixisada siday rabeen maaha. ma argixisadiyaa loo danaynaa mise waxaa loo danaynaa shacabka iyo badbaadadooda. shacabka iyo badbaadadooda in loo daneeyo ayaa annaga dawladdan waa dawlad shacab ah. wax naga go-ana waxay tahay shacabka in la badbaadiyo. sababa lagu badbaadin karo ayay qayb ka tahay in ay ku dhiiradaan inay joojiyaan taageerada ay taageerayaan kooxahan argixisada. kooxahan ma laha muxuu ahaa shacabkii bay laynayaan. marka qof shacabkaaga iyo caruurtaada laynaya adigana ina cabsi wax usiiso wax ay ku tarayso ma laha. marka taas waa mid naga go-an. waa qorshe dada la daba joogay. dad badan baa jira lagu tuhumsan yahay. maxkamadahana lasoo saari doono. laakiin annaga waxaan rabnaa wax kasta oo u daneynaya shacabka dantoodana meesha u joognaa. marka muddana waa la socotaayo waa laga soo shaqeynaya howlahan. dawladihii naga horreeyey marka waa caqabadihii ugu weynaa ee jiray bay ahayd. annagana waxaa naga go-an caqabad kasto in xal loo helo. xalkiibayna kamid tahay in shacabku ay dawladooda aaminaan, ayaga naftooda aaminaan, oo aysan wax cabsi ah aysan ka baqin kooxahaas argixisada. waayahay, qadka igu jir, waa mahadsan tahay. waxaan la hadlayaa markaan cabdirashiid xaashi, madaxa heritage. cabdirashiid, waa mahadsan tahay waktigaada. hadalka wasiirka waa maqlaysay. arrintan sidee loo hirgelin karaa bay kula tahay marka? waad mahadsan tahay cabdinuur iyo wasiirka iyo akhyaarta kaleba. arrintan horta macnaha maadaama soomaaliya dawladda ay dawlad daciifa tahay, muddo dheerna ay dawlad la-aan iyo fowdo kusoo jirtay, hal mar arrintu xal kuma noqon karo beri ha tegin iyo tooratooro ha tegin iyo lacag ha bixin iyo hebel baa lacag bixiya. arrintu way ka yara mug weyn tahay. oo dawladdu horta waxay ahayd meelahaas ay leedahay yaan la tegin iyo ciddii tagta ama aada ama kasoo noqoto shaqaan ka qabanaynaa. waxay ahayd meesha iyadu inay joogtay ahayd oo cashuurta ku aruursato. marka maadaama aysa meesha iyadu joogay oo dad kala joogaan, waxay taas muujinaysaa inay dawladdu ay maaragtay ay tabar la-aan jirto inay ka diidido nimanka ay tahayaan oo ayagana leenahaya siduu si ku sheegay shacabkii kale ka agdhawaana ay ku agdhimanhayaan inay ka diidido markaas in dhaqaale iyo wax la gaarsiiyana hadda waa arrin loo qaateena. oo laba nin haddii ishayaan ama laba qof macnaha qofkan kale inuu yidhaahdo olila sharciyeed asagu uu sheeganayo inuu kii kale dee inaan wax la gaarsiin ama wax la siin ama lagu hubeyn inuu ka qaydiyo, waa wax meesha ku jira. dhinaca kalese ganacsatadooda dhan ama kasaayo ha joogaan ama qaluulo ha joogaan ama inta udhexaysa ha joogaan ama muqdisho ha joogaan, hal mar in laysla magacaabo oo ganacsataasaan samaysay iyo ganacsata xagga aada iyo warkaas war dawladeed maahan. sharcigana war ku habboon maaha. waxaa laba hebel haddii la yaqaano nin cali la yihahdo iyo nin ciise la yihahdo iyo shirkad la yihahdo x ama y la yihahdo, haddii lagu ogyahay inay saldambiyeed ku jirto ama nimankaas dawladda ay ishayaan ay lacag siinaysa baad ha noqoto ama toos ha noqotee, ayagaa la rabaa in toos loola xisaabtamo. laakiin dhaqaalaha soomaaliya ganacsadu dalkan ganacsadu ku dhisnaa muddo dheer. ganacsada shaqaalaha ugu badan dadka shaqaalaysa ganacsiga laga shaqaystaa. hadda ka horre waa laogyahay shirkade ayagoo argaxiso ku jirin intii argaxiso loo tiiriyey dadkii lahaya iyagu waa muddo dheer xanidnaayo. marka dawladdan waxaa loo baahanya inaysa hal buraash aysan wada marin ganacsatada oo qofkii ay faldambiyeed ku arkaan ama ku tumaan ay qofkaas la xisaabtadaan ama shirkadaas. midda labaadna meesha la tegayo wax lagu bixinayo haddii iyagu dalka dawladkii meesha ha degaan oo cashuurta ha ku qaataan. taas waa mid waaye. midda labaadna waxa weeye
haddii la rabo in shabaabka xal loo helo ama miiska hal soo fadhiisiyo wada hadalka ama in laga xoog ha loo sheegtee waxaa loo baahan yahay dadkan qurbaha laga soo arooriyey oo dowladdan ka buuxa keliya inaan dowladda lagu soo darin oo wasiirada iyo xilalka iyo loo dhiibina dadka guryaha iyo ganacsiga iyo dhulka iyo hantida dalka leh oo ganacsatada dalka in wax laga siiyo adduunyada dadka tujaarta baa dowladda wax laga siiyaayo hadda maareyn horeenka ninkii shirkadii oilka haystay wasiirka arrimaha dowladda laga dhigay kuwii kalena la mid bay ahaayeen laakiin dad boorso la yimid magaalada markii sanadka laga qaadana boorsada ku noqonaya keliya dowladda in la geliyo maahayn dadkan hantida leh waa in dowladda wax laga siiyo nimankan aamiis kusoo fariisiyaan iyo culimadaba waaya ama maarata dagaalka uga qayb qaata hantidooda dhawarnay laakiin habkan hadda ma sii socon doonto tuhunkan inay ganacsadu ay lacagta bixiyaanna meel walbuu gaaray maxaa la yidhaha dowladdiina dee hawsha waa ku kululaa dhinaca kalena dad dee isku duuban lama eedeyn kara qofka dembilaa la eedeyn karaa marka arrintaas si mug weyn in loo fiiriyo baa loo baahan yahay waata waa kugu soo noqonaya cabdirashiid wasiirkan mar kale ku noqonayaa mudane yariisow hadalka cabdirashiid waxa aan ka dhadhansaday dowladdu shaqadii la rabay inay shabaab ka qabato inay shacabkii u dirayso yacni meesha ay joogaan ay dadka lacagaha kaga qaadayaan dowladdu inay joogtay ahayd buu yidhi oo iyadu ay halkaas canshuurta ka qaado taa maxaa kaga jawaabaysaa waa mahadsan tahay horta fasiraadda midda dambe waa ku saxsan tahay cabdishiid laakiin midda hore ma qabo inuu cabdishiid saas u yidhi inaa dowladdu aan shacabka u dirayn al-shabaab ta maya middan kale annaga waa cabdishiid arrimuhu sheegay wax badan waa sax dowladdu marnaba ganacsatada soomaaliyeed ma wada eedeynin mana wada eedeyn karto mana wada eedeynin ganacsatada soomaaliyeed waa dadka badbaadiyey dalkan waa dadka muxuu ahaa abuuray muxuu ama jaamacadihii ama hay-adihii waddankan ka jiray ama sideedaba inaga cid oo maaragtay gaar loo fiirsanayno ma jirto wax laga hadlay waxay tahay dadka shaksiyaadka ama ganacsada ha noqdo ama iyo noqonin ee taageeraya fikirka ama kooxahan xag jirka ah unbaa laga hadlay taasna waxaan qabaa waa dembi ciddii maanta inta soo istaagto qof dembi galay yaan la eedeynin oo na dhihi karto waa rabna inaan la doodno diyaar baan unahay midda kale dowladda istaraatiijiyadeeda waa dhinac kow dagaalkii waa la wadaayo in kooxaas meelaha ay joogaan oo dhan laga saaro waxaa la wadaa in shacabka soomaaliyeed loo abuuro fursad iyo muxuu ahaa marxalad iyo jawi ay nolol maalmeedkooda ku qabsan karaan tusaale waxaa noogu filan 3 bilood sida muqdisho amnigeeda loo sugay oo looga ilaaliyey inay maaragtay qaraxyadii ay dadkii soo dhex galaan arrimahaas marka waa wax isla socda oo dhinacna waa tii madaxweynuhu cafis u fidiyey cid alaale ciddii shabaab oo doonayso inay wadahadalka timaado dhinaca kalena dib u heshiisiintii nabadeyntii wasaaradda arrimaha gudaha waa wadaa ama ha noqoto heer muxuu aha degmooyin iyo gobol iyo heer muxuu ahaa beelo intaba marka waa arrimo isla socdo aan kala maarmin amni lama sugi karo haddii aanan muxuu ahaa la helin dhaqaalihii loo baahnaa dhaqaalihii lama heli karo haddaan amniga la sugin haddii aan maaragtay taageerada la joojin kooxaha al-shabaabna amnigi ma sugnayo ilaan kooxdii aan la dagaalayna baa maaragtay la taageeraya oo dhaqaalo la siinaya marka waxaan waa wax isku xiran dowladdana mas-uuliyad gaara baa ka saaran waa soo dhaweynayna cabdirashiid iyo talooyinkiisa oo ah inaan buraash la wada marin waa sax buraash cidaan wada marinayna iyo cid la wada marin karo ma jiro ganacsadana waa ammaanayna doorkooda muhiimka marka haddii aan halkaa ka sii wadno wasiir arrintan markaad ka hadlayseen golaha xukuumadda ma waxaad u jeedeen deegaano gaara sida matalan muqdisho iyo nawaaxigeedoo kale mase dalka oo dhan cirif ilaa cirif ayaad ka hadlaysaan annaga waxaan ka hadlay waa wax fal dembina cid kastoo ku jirto inay joojiso waxaan samaynayna waa wacyigelin waxaan samaynayna waa waxa dadka looga digayo waa sax shaksiyaad waa jiraa lagu daba joogo raadadkoodii la hayo ayaga si gaar baa loola xisaabtamaya maxkamad baa la saaraya way isdifaacayaan laakiin muxuu ahaa inay shacabkii muxuu ahaa ka feejignaadaan in falal noocan oo kaleha ay dembi noqon karto taas ayay tahay ujeedada tiina waxaan rajeynayaa inay hadda si wanaagsan u shaqaysay qaar kamida dadkii aan la hadalnayn oo runtii shaksiyaad kamida oo bixin jireen waa hadda inay ka joojiyaan marka annaga waxa aan doonayn waxay tahay shacabka badbaadadiisa iyo sugidda amniga waa tahay wasiir qadka igu jir adigoo mahadsan waxaan markaan la hadlayaa generaal maxamed ibraahim guubir oo isna qadka magaalada london uga jira waa mahadsan tahay kasoo qaybgalka
dhinaca militariga ayaad adigu taqaanaa marka arrimahan dowladdu ay ka hadlayso iyo digniinta ay soo saartay ma kula tahay wax macquula oo laga miro dhalin karo cabdinuur waa mahadsan tahay adiga iyo b b c da iyo odayaasha meesha ku jira haddii aan ka hadlo su-aasha aada i weydiisay oo xagga dowladda iyo ganacsatada horta awalan ganacsatada la leeyahay waxay dhiibaan contribution ama qaaraan bay dhiibaan oo ay al-shabaab amaba qoladan argagixisada ay siiyaan la leeyahay ninkii qaaraan dhiiba oo koox argagixisaa siiya macnaha ayagoo ka mid yahay weeye qaaraanka ninka ku darsada waa member ka tirsan qoladaas uu qaaraanka siibaan horta u dhigayaan sidaan u haysto ninkaa asaga qaaraanka dhiibaayana wuxuu sharciga ka qaba haddee cidna lama weydiinayo oo waa nin dawladda ka soo horjeeda oo dawladda diidanoo sharciga wuxuu ka qaba unbaa la marin doonaa laakiin waxaa loo baahan yahay ninkaasi ma ku cad yahay dembiga ma dhiibi qaaraanka ma la hubaa ayaa mataqaanaa iyadana meesha ku jirta waaya waa in haddii marka sidaad u taqaanay aad u dhigtay haddii qofkaas marka la haystaba oo meeshii uu maaragtay ku shaqaysanayey ay xukumaan kooxdaasi wixii ay doonaanna ay ku xukumi karaan ama ay ka qaadi karaan ama weydiisan karaan maxaa lagu xukumayaa qofkaas oo kale marka tusaale ahaan haddee meeshii dawladdaba ayna joogin ninka meeshaas jooga ayaaba sayidka hadde tusaale haddaan soo qaadana meesha la yidhaahdo jilib haddee dawlad ma joogto waxaa mataqaanaa ka sayid ka oo oday ka oo maamul haysta nimanka kan argagixisada meesha ayada dawlad kama dhiibi karto amar laakiin waxaan ka hadlaynaa xamar baan ka hadlaynaa xamar ninka kan cabsanaya oo baada u dhiibaya ama cabsi lacagta u siinaayo dawladda in uu hoos galo weeye ee ma aha inuu hoos galo ou laaluush ku dhiibo cabsi darteed lacag inuu ku dhiibo maaha cabdinuur haddaan tusaale soo qaato anigu london baan deganahay londonna waad la socotaa maalin walba dhibaataa ka dhacda dad baa la dilaa aashid baa dad lagu shubaa maalin walba dhibaataa ka dhacda ma dadkaas asaga ah cabsi wax loo siiyaa mise dawlaa la hoos galaa marka dadka meelaha dawladda ay joogto oo ay ka talisa way caasimadda ka mid tahay waa in aanan qaaraan la siinin nabaddiidka ee la siiyaa dawladda oo lala shaqeeyaa oo dawladda la aaminaa oo loo soo sheegaa oo ma aragtay meeshii nimanka kan laga aamin lahaa in laga aamino dawladda oo raboorkii la siiya telefoon ayuu haystaa ninkii telefoon baa lacag loogu shubaa telefoonkii laakiin generaale dhibaatooyinka aad sheegtay ee london ka dhaca dawlad ayay shaqadeeda tahay oo ku daba jirta oo soo qabata oo maxkamad saarta dadka oo xaqooda marsiisa muqdisho imise ayaa ganacsato hantidooda lagu burburiyey ama naftoodii ku waayey oo aanan maqal cid wax laga qabtay isku mid miya may isku mid ma aha waxaa la yidhi cabdinuur roma maalin lama dhisin dawladda tan hadda jirta 5 bilood ba ay jirtaa imisay ka qabatay nabadgelyo imisay ka qabatay dhibaatooyinka dhacay imisaa jidka furtay imisaa mataqaanaa maxaanku yidhaahdahay hadda rajo weyn leh way badan tahay dawladna nabadda ma keento shacabkaa keena shacabka london dawladday la shaqeeyaan waad og tahay tariinada aan galno oo aan fuulno markii ciyaalla suuq ama qaatil uu soo gala shacabka ku yaaca oo qabta ma ahin booliis ma ahin military waa shacabkii horta shacabka in uu diyaar u noqdo inuu nabadda asaga ka shaqeeyo ayaa loo baahan yahay cabdinuur dawlad waa tahay waa kugu soo noqonayaa generaal qadka iigu jir waa mahadsan tahay cabdirashiid ayaan ku noqonayaa heritage cabdirashiid sax ma ku tahay ganacsatada matalan muqdisho oo keliya in la yidhaahdo
waxba ma bixin kartaan oo ganacsatadiina maaragtay meelaha kale ku yaalla waxba kama dhiibi kartaan maalihii ay shabaab xukumeen dadkii joogayna arrintaas ay saamayn weydo ilaan dowladdu ma gaartee horta dowladdan hadda muqdisho ka dhisan oo ilaa 2000 lasoo unkahayay oo lasoo dhisahayay waa dowlad tabar daran oo dalkii la oran jiray jamhuuriyadda Soomaaliya wax badan kama xukumaan hadda Hirshabeelle cashuur kama qaataan South West cashuur kama qaataan Puntland iyo Kashay iyo Kismaayo iyo Somaliland kama qaataan cashuur horta marka meel yar nimankan joogaan hadda dowladdan joogaan shabaabkuna waa maamul goboleed hawaa'iga weeye hawada ka jira waa isku jiraan waa virtual macnaha oo xamarna iyo meelahana dhaqdhaqaaq iyo gacmayn kule meelana jooga oo gobolka Jubbada Dhexe kale iyo meelo shabeellada hoose iyo hiiraan iyo meelo lamid ah iyo shabeellooyinka way joogtooda weeye meelo ka joogtooda horta marka nimanku waa niman jooga oo macnaha ka mid ah dhaqdhaqaaqyada iyo awoodaha dalka ka jira ka mid ah ganacsatada marka haddii dowladda markii hore antii hore ku cabirnay waxa la gudboon ganacsatada laftigooda waxa la gudboon taariikhdan qormaysa iyo ganacsatada kaliya taan shacabka Soomaaliyeed oo dhan taariikhdan qormaysa inay meel raacaan oo macnaha ay cidii la jiraan la yaqaano oo cidii la tolka yihiin la yaqaano laakiin dhaxaad ma iska ahaanaya hadda ninkii hooyadii guursada adeerkay noqonaya oo isbaaradii aan ku dhacaa ninkii joogaan wixii aan u tuuri karo u tuuraya waa dhici kartaa habka ugu fudud ee qofku uu noloshiisa ku furdaamin karo ama xaaladihiisa ku maareysan karo inay tahay oo markuu isbaaro ku yimaado ama shabaab ha joogo ama ciidan ha joogo ama burcad ha joogo ama warlood ha joogo ama mid tolkiisa ha jooge inay waxay siin karaan siyaasi markaas danahooda ay u qabsadaan u socdaan way iska safayn karaan guud ahaan Soomaalida ganacsiga kaliya maahan marka horta mawduucan taagan oo shabaabkan iyo ummadan iyo waxaan la hor taagan yahay qofka Soomaaliga waa inuu fikrad qabo laakiin qofkii dhaha anigu waxaan dhaxaad baan ka ahay ama ma fahmi karo ama dhaxaad baan ka ahay markaas labada qoloba inay gacmaystaan oo marna sanbilos u dhaarto iyo sariyahan oo isugu diyaarka amniga u dhaarto marna xagga looga dhaarto ama lacagta laga daadsado waxay noqon doonaan hashii la oran jiray goran baa dheelmay oo qoladii arkaa ka shaqeysanaysa oo qofkii la garan waayo meeshu arrintan ugu jiray xaaladda ku toosan yahay taas waa dadka Soomaaliyeed waxa la gudboon marka waxa loo baahan inay mowqif qaataan oo meel warkooda cadeystaan waaya waa la iska baahan yahay oo isugu dhex jiro karo muddo dheer baa lagu soo mooday hadda waxa loo baahan yahay marka in si loo kala baxo shacabku dawlad ma noqon karaano shabaabku iskuba taagi karaan waata halkaasaan ka wadaynaa Cabdirashiid wax yar iisug saacadu haatan 5:15 ayay soo gaartay Afrikada bari waxaad la socotaan barnaamijka dooda oo galabta su'aasha ugu weyn ay tahay digniintii ay soo saartay toddobaadkan dowladda federaalka ee Soomaaliya ku saabsanayd in ay jiraan dad lacag siiya xarakada al-shabaab oo dagaal hubaysan kula jirta dowladda Soomaaliya taasoo dowladdu ay sheegtay in lacagahaas laga joojiyo haddii kale cidii lagu helo tallaabo ay ka qaadi doonto waxaa barnaamijka ka qaybgalaya sidaas aad maqlaysaan Cabdirashiid Xaashi madaxa hay-adda daraasaadka siyaasadda Heritage fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho waxaa kaloo ka mid ah General Maxamed Ibrahim Guuber oo isaguna xagga militariga aqoon u leh iyo wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya injineer Maxamed Cumar Yariisow Cabdiraxmaan Cumar Yariisow raalli ahaada marka halkaas ayaan dooda ka sii wadi doonaa halkaad nagala socotaana waa London waa tahay haddii aan fiiriyo dhinaca Facebookana dhegaystayaashu way nagala socdaan qaar ka mid ah haddii aan markaan idiin soo gudbiyo ra'yigooda
jaamac cali same muqdisho ayuu joogaa waxa uu leeyahay amarka dowladda ka soo baxay ee ku aadan ganacsatada iyo shirkadaha ee shabaab siiya lacagaha waxaan u arkaa mahmahadii soomaalida ee ahayd hal bacaad lagu lisay waayo marar badan dowladda soomaaliya amaro soo saartay oo aan la qaadan amar keliya wax micno ah ma soo kordhinayo waxaa habboon in ay fuliyaan amarada dowladda oo loo hoggaansamo halkaas ayuu la maray cabdiqaadir cali maxamed oo jooga muqdisho isna waxa uu leeyahay isla digniinta dowladda ra'yi ayuu ka soo dhiibtay wuxuu yidhi tusaale waxaan u soo qaatay shirkad al-shabaab haddii ay diiddo in ay lacag siiso dowladdu ma ka celinaysaa al-shabaab waxa uu yidhi haddii la yidhaha saka keena oo ay diidaan al-shabaab dowladdu ma ka difaacaysaa shirkadaha waa tahay halkaasoo la maray waxaa isaguna ka aragti duwan aan idhaahda iyaduna faadimo ikraam maxamed joogta boorama waxay tidhi waa in dadka baadda siiya shabaab laga qaado tallaabo sharciga kolley waa la wada yaqaanaa maalkoodana waa in lagala wareegaa sida ugu dhaqsaha badan si kuwa dhibka wada ay nooga daayaan dhibta waxaa isaguna soo qoray cabdulqaadir maxamed saadaq waxa uu leeyahay ganacsatada qaar ayaa shabaab maalgeliyaan lacagna siiyaan cid kasta way og tahay ganacsatadaas waa kuwo ka soo horjeeda dowladnimada soomaaliya oo wada sidata baasaboorada ajnebiga ee dalkana ka daldasho lacagta waayahay meel kalooba la sii aaday aan loo joogin waa tahay qaar kalena waa ay soo socdaan markan waxaan ku noqonayaa wasiirka warfaafinta cabdiraxmaan yariisow injineer waxaa laga dhawaajiyey in muddo dheer soomaalidu ay ku soo dhaqmaysay waa 27 sane ugu dambeeyey sida muuqata nidaam ah qofkii meesha xukuma inaad la macaamishid mar walba taas maxaa hadda isbedelaya marka waxa isbedelaya waxay tahay kow horta dowladdan waa dowladdii muxuu ah runtii shacabka waxayna ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddaba waxa loo danaynaya waxay tahay horta shacabka in la badbaadiyo loona daneeyo arrintana sida oo marmar loo dhigayo ma aha oo annaga meelaha hadda ay al-shabaabku joogaan jilid iyo shacabka joogo shacabkaas iyo annaga waxaan la hadlayn waxay tahay shacabkan joogo meelaha dowladda ay joogto ama handadaad ku bixiya ama taageera oo aaminsanba fikirka iyo al-shabaab waxa ay wadaan oo shacabkii qarxinaya isma keeni karto taas waxa weeyaan waa midda kale annaga u soconaba meelaha ay joogaan oo dhan waa laga wada bixinaya laakiin inta laga bixinayo laba dagaal annaga iskuma geli karno oo ah dadkii oo aan badbaadada siinayno oo goobihii dowladda ay joogtay jooga inay taageeraan argagixisa oo wax dembi ah aan ku fiirsano taas ma suurta geli karto waxyaalaha dhaqanka la rabo in la bedelo ayay ka mid tahay caaday noqotay oo ah cid alaale ciddii maaragtay aniga laaluush i warsato ama ciddii handadab waxbaa iska siinaya annaga waxaa rabnaa isla xisaabtan dhaba inuu yimaado dowladdiiba la xisaabtamo meelahay ku qalban tahay loo sheego sidoo kale waan rabnaa inaan dhegeysano shacabka dhahaya al-shabaab inaan taageero iyo fikirkooda aaminsanahay dowladeeda qalbantii hana soo horfariisto hanagu qanciyo laakiin in oo hoostana laga taageero dowladdiina lala joogo runtii waa fal dambiyeed annaga waxaan ka hadleen taasna waxaan qabnaa in waktigeeda la joogo waktigii shacabka iyo dowladda iskaashanayeen la joogo waxaana tusaale noogu filan 3 bilood iyo sii caasimadan amnigeeda loo sugay intaas haddaan kusii darno inaan joojino taageerada dhaqaale iyo siyaasadeedna meelaha ay joogaan way ku dhimanayaan marka annaga waa naga go-an tahay waana ballan oo madaxweynuhu ra-isul wasaaruhuba qaadeen shacabkana soo dhaweeyeen waa tahay wasiir marka inta aad og tihiin hadda dadka shakhsiyaadka ama sharikadaha aad maaragtay tuhumaysaan ama aad leedihiin waaba caddayn karnaa inay lacag siiyaan al-shabaab wax ma nooga sheegi kartaa runtii maya oo warbaahinta kuma sheegi karna oo taas waa sharcigaa jira qof kasoo eedeysano u yahay ilaa ay maxkamad ka cadayso qofkaas waa dembi ma laha waxaan rabnaa dadka eedeymaha iyo ku hayno cadeymihii o dhan la hayo in loo gudbiyo hay-adaha garsoorka
oo markaas maxkamadihii ku shaqada leh ay muxuu ahaa wixii tallaabo ku habboon ay ka qaadaan. warbaahinta lama wadaagi karna, laakiin waxay la wadaagi karnaa inay jiraan dad lagu raad joogo oo runtii caadaystay dhaqanna ka dhigtay. annaga dhaqankaas inay shiilaan rabnaa, sababta wacyigelinta loogu sheegayo bulshada taasaa kamid a. waxaa kamid ah oo kale dadaan ogeenba inay dembi tahay, inay muxuu aha ciddii handidada ay wax siiyaan. arrimahaas oo dhan waa arrimaha aan rabno oo shacabka aan ugu naxayno, hadhowna aysan oran annaga waxaan ma ogeenna looma sheegin, ayay tani qayb ka tahay. intii la iclaamiyay intii ka dambeysay, inta muxuu ahaa ganacsato ama shaksiyaad nala soo xiriiray oo runtii caddeeyey mowqifkooda yiri annaga hadda dawladdan la jirnaa, wixii ka dambeeyana waa maaragtay dadkaas waa iska dhicinayna, waa daban yihin. sidoo kale cabdirashiid aad baan uga mahad celinaynaa. runtii muxuu qofku laba meel oo kuma jiri karo, laba meel oo isdagaalayso, inuu meelna uu dhaqaalo ku bixiyo, meel kalena uu dhaw aniga afka niyadda kala jiraa, ma soconayso. dawladnimada waxay ku socotaa waa shacabka oo runtii taageera. marka shacabka taageeradoodana uga mahad celinaynaa. arrintaana waa arrin bilow ah, u baahan in la sii wado. waa dhici karta inay carqalado iyo yimaadaan, iyagana waxaan rajaynaynaa inaan sida ugu quruxda badan annagoo u danaynayna shacabka uga wada gudbi doono. waayahay wasiir, qadka igu jir. marka waxaan la hadlayaa dhegeyste magaalada muqdisho qadka telefoonka ka soo galay. sidaan idin sheegay, qofkii facebooka noogu dhaafa numberkiisa waa la hadlaynaa, ama qofkii isaguba toos noo soo waca. walaal, magacaaga iyo meeshaad joogto, dabcan muqdishoaan u arkaa meeshaad joogto, magacaaga iyo haddii aad su-aal qabtid ama aad barnaamijka wax ku korinaysid, soo dhawow. cabdinuur, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. waa Caaisha Cabdikariim xasan, kuna sugan magaalada muqdisho. haddii aan ra'yigay ka dhiibto amarka ka soo baxay dawladda ee ku aadan lacagaha ay ganacsatada ku bixiyaan al-shabaab, waa arrin wanaagsan. sababtoo ah haddii aynaan ganacsatada qarash garan lahayn, awoodda al-shabaab way yaraan lahayd. haddii ay ganacsatadu naftooda u baqdaan, naf ayaga lamida ayaa ku go-aysa halka. mana banaano diin ahaan iyo wax walba si mar walbaba ma banaano. sababtoo ah nabigeena ayaa wuxuu yidhi laa yu'min axadukum xataa yuxibu liakhiihi maa yuxibu linafsi. waxaa khalad ah oo dembi ah inuu ganacsatada ay naftooda ayaga badbaadsadaan, ay naftooda u baqaan. ayaga dad lamid ah iyo caruur iyo dad aan waxba galabsan oo maate ah oo waxba aan galabsan oo rayida in lagu baabi'iyo, aad iyo aad ayaan usoo dhaweynayaa. ganacsatadana waxaan leeyahay qarashka aad ku bixinaysiin cadowga ummadda Soomaaliyeed waa mid dembi idinku ah. dawladdan aad iyo aad ayay u mahadsantahay. waa mahadsantahay adiguna. waa ra'yiga aad qabtid. hagaag, wasiirkan ku noqonaya yiriisu mar kale. wasiir, waxaa laga dhawaajiyey sida adaaba ka hadashayba, sharcigaa la hor keenayaa baa tiri, dadkii waxbaan ognahay. sharciga dawladdu ma yahay mid la isku halayn karo? ilaan hadalkii aad soo saarteen digniintaa waxaa ku jiray dad meesha dawladdu joogtaba ka taga oo al-shabaab xukun u doonta inay maaragtay garsoor u sameeyaan. marka sharcigiina ma la isku halayn karaa? bismillahi raxmaan raxiim. sideedaba kalsoonidu waxay ka bilaabataa waa shaksigana waxaa la rabaa inuu aamino dawladdiisi. dawladdan waa dawladdii shacabka. tan ama laisku haleyn karaa laiskuma haleyn karo, waxay ku xirnaanaysaa hadda kayskii markaas maxkamadda yaallo iyo sidii markaas loo xukmiyo. laakiin anaga aaminsannahay ciddii hay-adaha amniga cadeymihii ayagoo haya soo qabtaan, qofkiina uu xaq u leeyahay inuu qabsan karo qareen oo ka jawaabo, cadeymihii dhiibi kara, maxkamadiina ay u kala garnaqayso. runtii waa habka ugu habboon adduunka oo dhanna system ka jira oo lagu shaqeeyo waayo. case haddii u jiro oo qaldamay iyo taas waa arrimo kale, laakiin anaga waxaan aaminsannahay nidaamka inuu mar walbo nidaam la-aanta ka fiican yahay. cidda ay bixinayaan iyo maxkamadoodii oo loo garnaqayo qareen ay qabsanayaan mid laisku barbardhigi karo maaha. dadka waxaan leenahay aamina dawladdiina, aamina garsoorkiina. qofkana isagaa laga rabaa haddii dembigii uu qarto oo uu caddeeyo inaan maxkamadii loo baahano, oo waxaa dhici kartaba oo muxuu ahaa kayskii kahor out of court settlement waxa la yidhaahdo, waa intaan maxkamadii la teginba kahor labada dhinacba ay ku heshiyaan oo la xaliyo. waxaa dhici karta in loo baahdo dad muxuu ahaa ukala garnaqa oo dib heshiisiin ah. arrimahaas oo dhan marka anaga garsoorkeena waxaa aaminsannahay in dib habeyn nidaam waa jira, waa socdaa sida dawladda oo dhan qaybaheeda kala duwan uu u socdo.
laakiin shacabku waxaan rabnaa inay aaminaan dowladooda iyo hay-adaheeda. waa tahay waa mahadsantahay qadkii igu jir wasiir waxaan la hadlayaa markaan generaal guubir oo qadka isna muqdisho aan idhaahday london uga jira generaale arrintan dhinacyada ay leedahay waxaa ka mid a magaalada sida aad maqlaysay wasiirka hadalkiisa barnaamij la yidhaahdo xasilinta nabadgelyada ayaa ka socda ganacsato iyo dad hub haystay oo is-ilaalinayay hubkii waa laga qaaday maxaan ku idhaahdaye dood ayaa taaqudheeda ka taagnayd oo ay lahaayeen waxaan anagu shabaabaan isaga celinaynay marka lagama dhegaysan waa laga qaaday dadkiisa cabooley ayay noqdeen dowladda ayay ku hoos jiraan waa hagaag miyaanay tani kordhinayn marka cabsida dadkan wax haysta laleeyahay shabaab ayaad wax siisaan inay wax bixiyaan miyaanay qasab ku sii noqonayn cabdinuur waa mahadsan tahay horta waxaan u mahad celinayaa gabadha oo ka soo gashay xamar fikirka wanaagsan oo saliimka ee ay ka maaragtay geysatay ilaahayna waxaan ka rajaynaa dhammaantood inta dhalinyarada ee iyada camal in ay saa u fahmaan horta dowladnimada. waxaa kaloon u mahad celinayaa cabdirashiid oo asagana yidhi war dhankaas iyo dhankan mid u dhaca oo yidhi war dowlad inaan raacno iyo inaan argagixiso raacno iskuma heli karna dhan aan u dhacno. horta mahad baan ugu celinayaa. wuxuu yidhi ninkii Soviet Union dhisay ee la oran jiray Lenin wuxuu yidhi October mini yasna ay tosemno yasna seridinas ishoyaane boy. haddii aan ku macnayo af Soomaali wuxuu yidhi war ninkii ila jirana waan gartay ninkii ila dagaalamaana waa gartay laakiin dadkaan dhexda yaacay oon meelba jirin oo iska dhamaana ma aanan garan. taasi waxaan ula jeedaa war dowladda ninkii ka soo horjeeda la garay oo ninkaan nabadiidka oo bamka dhigaayo oo la dagaalamaa la garay ninka dowladda la jira oo difaacaya oo lacagta dhiibaya oo canshuurta dhiibaana la garay. war dadkaan dhexda socdow meel raaca siduu cabdirashiid u sheegay. haddaan usoo laabta su-aashaadii oo ku saabsaneed dadka hubka laga qaaday cabdinuur nabadgelyada waxaa la yidhaha gorgoro ma galaan laguma gorgortamo low and order laguma gorgortamo amarka dowladda ma aha yeel iyo ma aha. tusaale un baan soo qaataaye haddii hadda nin dembi ku jira halka kan la arka magaaladan London oo booliiska loo yeero oo ay yimaadaan ninkii oo yiraahdo isdhiibi maayo qaadan maayo amar booliiska kama tagaan amarkaas waa wuxuu fulaa ilaa dil oo qofka la dilo. laakiin London iyo Muqdisho marna ha isku matelin generaal waa isku masalaya cabdinuur ninkaas waa isku masalaya shacab waa shacab dowlad waa dowlad tabar yaraata magac dowlay wadataa. shacabka hargeysa degan iyo shacabka xamar degan cabdinuur waa laba shacab Soomaali. maxaa hargeysa keenay in shandada dollarka xamar habeen hargeysa 9 saac lagu dhex wato? maxaa keenay? shacabka degan baa keenay. shacabka xamar waa inay keenaan 9 saac gabar dollar bac ku wata inay marto. shacabka waa inuu keenaa cabdinuur xaqiiqda lagama tago. maxay tahay sababta xamar oo caasimadii oo madaxid ummadda Soomaaliyeed inay nabadgeliya la'aan 30 sano ah shacabka weeyo dowlad kasta ma taqaana aan garab taagnaan dowladna shacabkeeda garab istaaga canshuurta dhiibo odayaasha dhiibo sababta uma taqaana ninka kan nabadiid lacag u siinaya oo uu leeyahay ma taqaana yani maaragtay nabad baan weydiisanaya waa arrin foolxun. dowladda mid baan leeyahay dowlad cabsata dowlad ma aha. dowlad cabsata oo lala gorgortamo oo la yiraahdo ma aha waa tabar yarahay dagaal loogama hara magac dowlay wataan waa inay sharciga ku dhintaan. sharciga waa in la helaa waa in maxkamadaha maalin walba laga dacwoodo
in tilaabo ay dawladda ka qaado weeye waayahay waa inuu shacabka helaa waaye adiga afruusha ku mahmahday Soomaali haddaan ku mahmaaho waxaa la yidhi hal nin gurani garaacay dhinacna uma fayooba ganacsatada haddii dawladdiina dhinac ka garaacdo shabaabna dhinac ka garaacaan dadkii soo ma dhammaanayo marka okay dhammaan mahayaan dadka dawladda la jir weligaa dawladda dhankeeda aad shabaab dawlad ma aha waa nin nabadiid oo yar oo bustoolad yar wata wey dhanka dawladda mar la nabadgelyada si loo helo oo hargeysa camal ay u noqdaan tusaale aan soo qaadanaya ma ciidamada Soomaaliland baa keenay nabadgelyada ma booliiskaa keenay ma keenin shacabkaa keenay shacabka xamarna Cabdi Nuur taabaa laga rabaa meesha dawladda ay joogto shacabka waa inuu dawladda la jiro wey waa maasanta qadka igu jir dhageystayaashan fursad kala siinaya xagga telefoonka South Africa ayaa dhageysta ka soo galay magacaaga iyo ra'yigaada walaal magacaygu waa Cabdifataax Maxamuud Axmed waa ra'yigayga waxaan su'aal wasiirka waxaan rabay inaan su'aal weydiiyo haye soco waxaan rabay inaan wasiirka inaan weydiiyo waxaan ahayd inaan dhaho ma haddii ay ganacsatada dhaheen haddii ay dhiibaan canshuurta ay siiyaan shabaabka ma waa camaliyadii waa una talaabo sharci baa laga qaadaya haddii ay shabaabka u diidi maagaan ganacsatada waxay dhahayaan waa un dhibaato ama dil loo geysto yaa kafaal qaadayo marka ganacsatada oo amnigooda sugaya waa tahay waa mahadsan tahay wasiirkan siinayaa marka injineer Yariisow injineer dadkii waa kaasa hadayna waa ku weydiiyay inuu dhageystaan malaha mar dambe nagu soo biiray dadka haddii ay lacagta u diidaan shabaab inaan wax la yeeli doonin yaa damaanad qaadaya saas weeye su-aashiisa runtii damaanad waxaa qaadaya ilaaha qaadaya oo ah qof dulmi iyo xoog iyo baad wax kaa qaadi kara inaad aqbasho mada ahaado dameerka inuu kusiiyo ma aha waxaan ka hadlaynaa wax sharci darro ah cidda ku guuwaadinaysana maba garanayo aniga marka adigana waxaan rabaa arrintan mahmaahda soo qalabintii ma qabo inay feer nagu tahay anaga dawladda baan nahay halkan aad tiri labada dhinac waa laga garaacaya dawladdu cidna handado xoogna ugama qaado canshuur sida al-shabaab u handadayaan uma handadno dawladaan nahay nidaamaan nahay ciddii aan ku helnay maxkamadaan geynaynaa baan leenahay xaq buu u leeyahay inuu isdifaaco waxaan leenahay dastuuri nidaam marka arrinta tan ah nama qabato runtii taasna sax ma aha laba midda ugu horreysa aad ku bilawda in ra-iisul wasaaruhu uu ku eedeeya ganacsatada inay lacago badantan dawladda siiyaan runtii iyadan xigashadeedii waa kaaga baahannahay ama hadda intii dooda lagu jiro dadkii apology BBC ha siiso oo ha ka raaligeliso middan kale oo ah dhageystahana runtii annaga waa soo dhaweynaynaa shacabka waana dareemaynaa annaga sababta ay muddo noogu qaadato laga fikirayay go-aanka ama lasoo saara mise maya maxaa ka imaan kara waxaasoo dhan dawladdu aad bay daraasad looga sameeyey waxaana soo baxday waxay tahay muxuu aha in la joogo waktigii shacabkan ay ku dhiiranayeen adaa sheegay 3 bilood ka hor cid walba hub ku wadatay magaaladan oo hub nooc horaba ha ahaado waa la joojiyey dadaa waxay dhahay annaga waana la dilaya waa ku adkaysanay arrintii si wanaagsan bay u dhaqan gashay shacabka hadda waxay aamineen in muxuu aha intii dhiman jirtay oo qoryaha magaalada dhexdeeda ku dhiman jiray in hadda ay aada uga yaraatay intii hore marka tallaabo walba waxay u baahan tahay dhiiranaan waxay u baahan tahay in lala qabsado marka waana fahamsanaha annaga wax walba oo jiro shacabkana mar walba shacabkaan la jirnaayo ayaga darteed ayaa loo sameynaya arrimahan si ay nabad iyo ugu noolaadaan lacagahoodana aan baad dambe looga qaadin waayahay wasiir arrintan aad laba goor ka dhawaajisay ee ah lacag ka badan ayaa al-shabaab la siiyaa tan dawladda la siiyo waxaan ka soo xigtay 2 ilood mid waxa weye wargeys India ka soo baxa midna waxaa la yidhahdaa Africa Intelligence haddii aysan sax ahayn waxyaabaha aan halkaas ku arkayna haddaan raaligelin ka bixinaya arrintaas adaaba ku jira dawladdu waxay ka soo saartay statement cad oo qoraal ah oo lagu beeniyey iyada inaysan waxba ka jirin ay ahaayeen dad le ujeedooyin kale shaksiyaad magacooda qoray arrintaas dawladdu toodi waad aragtay tii dawladdu ay ku beenisay
sababtaad u sheegi weyseen BBC ma garan karo taas waa idinka idiin daynaya waanaan arkin marka iyadana waa sheegi lahayn marka taas waxaan u malaynayaa sidaas inaa raalli uga noqotaan ayaan jeclahay waa tahay wasiir waa mahadsantahay waktigaada weli iigu jir barnaamijka gebagebo ayaan hadda ku soo dhownahay waxaan ku noqonayaa generaal maxamed ibraahim guubir generaale waa yahay nidaamkii iyo amarkii dowladdu soo saartay adigu aad taageersaneed in la fuliyaa la rabaa marka taladaada soo koob awalan alla ya cizak allah ku barakeeyo cabdi nuur horta awalan waxaan u soo jeedinayaa dowladda khaasatan ciidamada qalabka sida hadda iyo jeer waxaan ka maqlaa ciidamada qalabka sida oo birita dagaal qaadayo oo afgooya ku qaadayo oo mataqaanaa biriira maraayo oo halkaas maraayo horta weligay ma aanan arag ciidan howlgalkiis oo telefishino laga sii daayo oo laleeyahay nabadiidka waa soo soconaa ka baxa weligay maan maqal bal horta taa in la joojiyo oo ciidanka falgalkiisa waa sir waktiga uu falgalayo saacadda uu falgalayo lama sii sheego waa qoslaa markaan arrimahaas arka oo nin telefishon soo istaagayo ma aragtay le berita waxaan weeraraynaa jamaamo iyo beriri le waan la yaaba warala taas joojiyo tan kale dowladda waa in aysan cadaaladda ka baqin cadaaladda inay ka baqin dowladda shacabka weeye dowladdan dhalinyaro fiican oo xildhibaanaha doortay baarlamaanka xildhibaanadiisa boqolkii waxaan dhihi karaa 80 waa rag laisku hadlayn kara oo shacabka soomaalida aada u difaaca weeye waa in ay ka faa'iidaysataa maxkamadaha aad baa looga cabaadaa nin fiicanna waa la keenay oo hadda London nala joogay kolley cadaaladda waa wasiirkeedii waa in ayadana laga faa'iidaystaa shacabka dowladda waa inay ka faa'iidaysataa anigu intaas ayaan mataqaanaa dowladda usoo jeedinayaa waa in aanan laga baqin dowlad ma baqdo sharciga lagama baqa shacabkana waxaa leeyahay war dowladdaada difaaca dowladda waa tabar yar tahay ayaan qolo ka maqlaa war dowladda tabar yar adaa tabar u yeeli kara annaga waxaan rabnaa odayaal baan nahay London baan joognaa waxaan rabnaa in magac fiican aad ku noolaataan aad ku baraarowdaan aan jecelnahay shacabka waxaan faraynaa u soo jeedinaynaa dowladdooda inay garab istaagaan waa mahadsan tahay waxaan la hadlayaa markaan cabdirashiid xaashi madaxa heritage raallahada cabdirashiid waa ka go'ay wasiirkan ku noqonayaa injineer yariisow injineer marka arrintan ma sahlana marka dhinac walba ma rogrogteen oo ma lafagurteen oo ma ka fikirteen waxa ka imaan kara dhinac walba khasaare iyo faa'iido iyo horumar iyo dib u dhac waxa ay keeni karto ma ka fikirteen markaa ku dhawaaqayseen hadalkan runtii waa su-aal aada u wanaagsan waana waxyaalaha la rabo waayo in bulshadana ay runtii ogaadaan idinkana isugu mahad celinaha fursadan aad annagana na siiseen shacabkana siiseen inay uga qayb qaataan waxaana hayse waxay tahay ma waxaan joognaa meesha aan joogno oo statkooda sidiisa buu ahaanaya oo ah in wax walbo la tallaabo la qaaday in la cabsado oo aan waxba la qaadin mise waxaa lagu dhiiranayaa wixii wanaagsan oo la og yahay inay dariiqa saxda yihiin niyadda iyo qalbigeydana uu yahay mid shacabkii u danaynaya muxuu ahaa dantooda arrimahaas oo dhan marka istaraatiijiyadan oo security architectureka marka laga fikirayay muxuu ahaa stabilizationkan ama xasilintan caasimada iyo gobolada inteeda kale dhammaan waxyaalaha goboradu ay aada ula fadureen waxaa kamid ahaa maxaa caqabado imaan karo sidee la yeelaya annaga dawlad baanaan shacabkeena wax dhib usii keeni kara haba yaraatee lagama yaabo inaan maaragtay ku dhaqaaqo sidaas daraadeed arrimahan aada baa looga fikiray waxa soo baxay waxay tahay wasiirka nabadda ee lawada yaqaano inuu yahay mid aanan taageereynin argagixisada mid shacabka iyo muxuu u keenaya amni iyo naqdeen
mid sii hagaajiya dowladnimada iyo soomaaliya sharafteeda iyo karaamada qofkan ganacsatada ah hubka badan isku ilaalinayay hadda markii muxuu ah amnigii la hagaajiyey gaari caadi isaga socda qarash baa u baaqday ganacsigiisi baa meel walba gaaraya arrimahaas dhan marka waa waxyaalaha the fear of unknown ay kamid tahay waa cabsida laga qabo waxaan isbedelka muxuu keeni karaa marka anaga waxaan qabnaa isbedelka inuu yahay mid laga daaraan degay mid loogu danaynayo shacabka soomaaliyeed keeni karana wadadii nabadda iyo xasilinta dalka waayahay waxaan siinayaa markaan cabdirashiid xaashi heritage cabdirashiid ma shaqayn karaa qorshahani saan warka ku bilaabay galabta arrintan maxaa loo aaday meelshaas oo shabaab joogaan iyo maxaa waxu bixisan keliya laguma xallii karo waxaa loo baahan yahay dowladdu inay dowlad u ekaato oo hadeerka dadku inay iyaga lacagtana siiyaan maqlaana inay dowlad u ekaato garsoorka ay hagaajiso garsoorku aada u liitaa ma hagaagsana taasaa keenaysa in meelaha kale garnaqsiga loo aado waa inay macnaha dadka soomaaliyeed oo dalkan wax ku leh oo ay ganacsada ugu horeyso dalkan uu ku dhisnaa muddo dheer ay talada wax ka siiso oo dowladda ganacsada ama shabaabka miiska ha keenaan ama sidii looga adkaan lahaa ka shaqeeyaan laakiin dowladda ganacsatada iyo dadka dalkan la leh oo hantidana leh kuna soo tiiriya ka cabeeray 25 sano ugu dambeysay inay talada wax ka siiso waxyaabaha meelaha ay joogtana in musuqmaasuqa iyo takrifalada iyo maaragtay adkaanta iyo dhibka ciidankooda iyo waxooda dadka ay ka yareyso si dadka ay u jeclaadaan taasaa dowladda looga baahan yahay dadkana waxaa looga baahan yahay in habkan uu la sheegay oo ah maaragtay dhexdaan iska taagnaanaya cayaarta sidii gorayadan ugu jiraya inaysan iska socon karin oo labada dhinacba shaqo laga qaban doono qolo dhacda iyo qolo tahdiida marka runtii dowladdu hadda dowlad la sheegi kara ma ahan oo aad bay u tabardaran tahay marka iyaduna inay markaas ay ogaato tabarteeda iyo maxaa xagga loo aaday iyo maxaa xagga loo aaday intay dhihi lahayd inay ogaato weeye inay waa mahadsan tahay waktigii aa naga dhammaaday cabdirashiid iyo wasiir yariisow iyo jenaraal guubir aad iyo aad ayaan idinkaga mahad celinayaa waktigiina nabadgelyo